ليتك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي الله محمد بن عبد الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات. ودروستني aanu lahayn ramadaanka aanu uga faa'iideysano wacyigeena iyo dib u fiirinta shu'uunteena iyo axwaasheena. وحلقتني سدحات وحنا وهضلينا العمل الصالح، عملك وناكسن وأيت يقفك مسلم كهين وكم مشغول مر والبا، سواء كانت في رمضان أو في غير رمضان. أما رمضان هنقطه أما وقت رمضان هنقطه. عملك وناكسن رب سبحانه وتعالى ونوع دون صدي. قفك مسلم كأما مؤمن كهين مر والبا، وخسعي يأرض يالله لنجرا inuu gaaro Allah subhanahu wa ta'ala radihiisa iyo raadahaanshihiisa, dabeetana inuu ku guuleysto Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmadiisa jannada ah inuu ku guuleysto ayaa qof walba muslimihi uu geeyfan yahay oo uu halgan iyo orod ugu jiraa. waxaa la yiraahdaa qof walba oo muuminihi marka uu ka tagayo waxyaabaha muharramaadka ama manhiyaadka ee Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ka xarimay ama uu ku dadaalayo oo uu sabrayo uu qaadanayo takaaliifta uu godanayo waajibaadka Rabbi subhanahu wa ta'ala uu saaray, hadafku waxa waa inuu ku guuleysto Allah subhanahu wa ta'ala ridihiisa, inuu Rabbi subhanahu wa ta'ala uu raali ka noqdo oo Rabbi subhanahu wa ta'ala sayi'aadkiisa uu cafiyo oo Rabbi subhanahu wa ta'ala liiska jannadiisa uu ku qoro, laayaxada dadka waxa way cadaabka loo dirayna Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ka badbaadiyo. عملك وناكسن أو صالحة أو أنو كرادينينو إلهي سبحانه وتعالى رضيهيسا أيانو وحوي حلقة وحرك الشيقين ومرك كواد. عمل صالحة وحال هذا عمل ولبا وقفك مؤمن كاهي وقبنا يونو إلهي ودواده. هنقضى عمل قلبك كدعية، أما هنقضى عمل أو عربك وحو عربك كقبنا يوم، أما هنقضى وحو بنها كلا يجرك وكقبنا يوم، وحو الرب سبحانه وتعالى إنه ودواده أدونك مؤمن كاهي وقصمينا يو أي عمل صالح ليل هذا شروطه سيوحي سكره ونشيق دونا. هذا العمل الصالح عمل كون أكثر كهلا ينوحيد يرهدان علماء المسلمين تو وكان رب سبحانه وتعالى سببتي سوسمين نرشي جيدة هدينا عمل صالح مكلفين كوهين ورب سبحانه وتعالى إن عمل صالح قبل نقوصن الدون سنين وحوي النور يجري بلا ما أبورين. الله سبحانه وتعالى وكان له هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى ومدك يسقون نور شيء يجري ذا أبوري si uu idinku imtixaano bal midkiina amalka wanaagsan sameeynaya oo kan kale ka amal fiican iyo midka kale. samarada iyo wanaaga amalka saalixa laga helayo waxaa kamid ah bay yiraahdaan culimada muslimiintu inuu adoonka amalka saalixa qabanaya adduunyo iyo aakhiraba inuu helo nolol liibaan iyo xasilooni iyo barwaaqo leh inuu helo. qofka noloshiisuna waa labada marxaladood waa marxaladda nolosha adduunyo iyo marxaladda geerida ka dambeysay adoonku uu aakhiro u safray weeye. marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى عليه قفك عمل ونكسن سمايا أما الرجل هالنقضة أما الدمر هالنقضة الدنيا ده وحنا كنا علينا إن نلول ونكسن وحسلون مركو آخرة أذنا وحنا كو أبال مرينا إن بأحسن ما كانوا يعملون. الكتاب معناه waxa weeye aayadu waxay tilmaamaysaa
قفك مؤمن كا مسلم كا أعمال صالحة الدنيا ده كوكب صداهي وحوي هدوا آخرة آذنا وحوي نلول حصلون بولا كل مدونا الدنيا ده انتو جوجنا نلول وحوي برواق صورنا وخير قبطة وحصلون والليبان له أيو كنا على دونا علماء مركي كهالليان شروطها عمل كوناكسن محا وشرطية وحال إذا عمل كوناكسن إلا بشرطي بوليه الدون كمسلم كان عمل كوسمين أيو حدو كرب إنه عمل صالح النقض لبضع شرطي وينه إلى عليها وشرطي كوادي شرطي كواد وحوي inuu adoonku camalka uu qabanayo ilaahi dartii u sameeynayo cid kale ugu dhawaanayo ama magac uga raadinayo ama sumcad uga raadinayo ama adduunyo uga rabo ama aakhira wuxuu uga rajeenayna total inaan jirin waa mas'alatu al-ikhlas inuu camalkaasi ikhlaas leeyahay ikhlaaskuna waa maxay waa tajriidul qasd lillahi jalla jalaaluhu wa tabaaraka ismuhu wa in allah subhanahu wa ta'ala qasadkaaga iyo ujeedada iyo waxa aad camalkan ula dan leedahay in Allah subhanahu wa ta'ala oo kaliya aad niyadaada ku gaar yeesho weey ama marka niyadaada cid kale ku jirto camalkan cid kale ula jeedo ama aad ilaahay cid kale isku garab wado camalkaasi camal saalix ma aha shardiga labaadna waa ittibaacu nabiga sallallahu alayhi wa sallam camalkaasi inaanu ahayn camal ku yimid hal abuur diineed ama ku yimid maxaa la yiraahdaa ibtidaac iyo ikhtirac wax diinta lagu soo daray صلى الله عليه وسلم وسنوغين وين أنو نقولين عمل كاس وين نقضى عمل نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأوجا والنبي صلى الله عليه وسلم يسوي خطدي يسوي نوجحي والنبي صلى الله عليه وسلم إن إله اللي يقوله وانكر والنبي صلى الله عليه وسلم صحيحي وين وهذا حدي عمل قوية هي هذا إله يقوله وين يسوي حلابه حلابورتين معد كلا حلابورتين والنبي صلى الله عليه وسلم وسنسوجر سنين بدعة لإله هذا إلهنا اللي يقوله وهذا ربنا سبحانه وتعالى ما أقبله ضلال إيه بادي وأدون كمرك واحد لقد بون هدي عمل كأور ربا إنه عمل صالح أو النقضه إيه ربي سبحانه وتعالى يقول له والله سبحانه وتعالى كره لقليه وإنه عمل ككل الدلال إخلاصك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمل كصالح علماء وحيدا لبدر الجولة هيو مدو حويه وواجباتك رب سبحانه وتعالى وأدون كيس ساري وفرائض إيه واجباتك وجودنا هيو مدنا وحالي هذا وصننت يوحي النوافله وقدر كرو محي وقدر كروي لذلك علماء وحيد هذا السننته iyo faraa'ida ku dadaalistoodu labadaba amal saalix weeye laakiin waxa adoonka muuminka ah muslimka la gudboon marka koowaad waxa weeye inuu ahmiyada siiyo oo uu ilaaliyo oo nusqaanta iyo khalalka ka ilaaliyo faraa'ida iyo waajibaadka rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku waajibiyay waqii hadithul qudsi Allah subhanahu wa ta'ala laha wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi adoonkaygu buu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala iguma dhawaado wax aan ka jecelahay waajibaadkii aan saaray inuu guto iguma dhawaado marka waxa weeye waxaan qofka muslimka la gudboonayn intuu waajibaadkii dayaco inuu yiraahdo sunan iyo nawaafil iyo waxbaan ku dadaalaya qofka muuminka lama gudboona waxa weeye inuu waajibaadka ku dadaalo oo waajibaadka xafidaba la gudboon marka kadibna wixii uu kari karo ee sunna iyo nawaafila iyo inuu ku dadaalo oo nafta la ijtihaado oo ku daro ayuunba qofka muuminka la gudboon marka waxa weeye labada darajo oo ah al-faraa'id was-sunan aw an-nawaafil ayaa amalka saalixa uu ka kooban yahay qodoonka muslimkana way la gudboon tahay inuu ilaaliyo labada waxa weeye darajo midda hore oo midda dambe qiimo yeelan mayso qofka hadii waajibaadka ay ku dayacmaan maxaa tusaale u noqon kara acmaasha saalixa ee wanaagsan qofka muuminka ah inuu ku dadaalo oo ilaahay ugu dhawaado oo rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku raali galiyo waxa weeye uu nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo jideeyay ilaahayna subhanahu wa ta'ala nooga raali noqonaya inaanu nicmadiisa jannada helana damaceena rajadeena kordhinayo sare u qaadaya waxa kamida waxa weeye salaadaha ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugu farad yeelay intii sunna ah waxa weeye awqaad iyo waqtiyada nahyiga markii laga reebo inaad ku dadaasho waa amal saalixa zakada xoolaha lagu leeyahay inaad bixisaay waa amal saalixa fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka mucawisiinta waxaad u heli karto oo xoolaha maal adduunyo inaad ku gacan qabato ku taageerto waxa weeye amal saalixa weeye
dadka muslimiinta ee isku dhacsan waxaad ka islaaxin karto shuruuntooda iyo ka heshiisiin karto inaad islaaxiso heshiisiisa amal saalix weeye qofkii taag daran inaad xuduudaada waxaad xoogga dheertaa ku caawisaa amal saalix weeye masaajidada inaad amirtood ku i'tikaaftahay amal saalix weeye inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa iyo dhikrigiisa iyo xuskiisa aad carabka ku haysaay amal saalix weeye mashaariicda guud ee ummadda ka dhaxaysa inaad maal geliso xoolo ku bixisaa ina amal saalix weeye sida tusaale inaad isbitaalo u dhisto inaad madaaris u dhisto inaad wadooyin u dhisto inaad ceelal u dhisto waxa weeye kulligood acmaasha saalixa ee in lagu dadaalo ilaahay lagu dhawaaday rabbi subhanahu wa ta'ala lagu raali geliyo waxa weeye ridaha ilaahayna lagu helayo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo nabaray ayeen bay kamid yihiin inaad maal geliso acmaasha dacwiga ama waxa weeye aad amal dacwiya samayso oo ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa waxa weeye aad dhiiri geliso ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa aad fidiso oo dadka ilaahay diintiisa aad gaarsiiso oo dadka waxa weeye wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa khalad ku aad kala dagaalanto oo macruufka nolosha muslimiinta ka maqan waxa weeye intaad waxa weeye aad nooleyn karto aad noolayso iyadana acmaash saalixa bay ku jirtaa waxaas oo dhan waa namaadij al-amal as-saalih adoonka marka muslimka ah mar walba wuxuu u halgamaya ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu raali geliyo nicmada rabbi subhanahu wa ta'ala inuu ku guuleysto way la gudboontaa marka intaas oo acmaal inuu ku dadaalo حلقتنا انتاس بنكون جبنجبينيا وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.